بسم الله الرحمن الرحيم. مركلة دهاتنا ويكنا السلام عليكم. وحا مر لباد وان دين ما هدنا قيا حزبكو وحو حزبكو يهدد كيسة هواكونا ده مجتمعين وبقول كيبا ده كونتون يوحكا أقدو حساب صحي مجرد لكن رقم مركز حريفين يا حدا دمركو أي ملاش لينا دمركو بقول كيبا كونتون ويكبدين حزب النمداسي إنك ودن كين ويكو عصبتها وده وحابه وقوري حزبي وقدا وين مان سومالنا ودواوعد waxaan doonaa xisbigeena inaynu aasaaskii koowaad ee xisbi waara ku noqon lahayn u dhigna hadii la helo insha Allah qorshaheedii iyo shaqadeedii oo wada socda aasaaskaasi waxa weeyaan xisbigu inuu yeesho xubno rasmi ah oo la yaqaan oo qof kasta oo xisbiga ka agdhow aanu doonin inuu xisbiga taladiisa qayb ka noqdo qofka xisbiga taladiisa qayb ka noqonaya oo noqdo qof xisbigii ku jira imika xisbiga waana lagu wada jiraa lagumana wada jiro Soomaa qof kasta xisbigu ka mid yahay oo de 250,000 oo qof wax ka badan ba ayaa u codeeyay qof kasta hadaad weydiiso oo tiraahdo ma wadani baa tahay wadani baan ahay uu leeyahay laakiin waxa laga yaabaa de codkii uu maalinta qofku bixiyay mooyaane inaanu hawl kale iyo shaqo kale aanu qabanin marka shaqada uu horeysay inuu qabanayna waxa weeyaan dadkeenii inaynu wada hawl gelino qof walba soo xisbiyaan uu noqdo xisbigii xubin rasmi uga noqdo waa arinta ugu muhiimsan ee anigii gudoomiyuhu baan UK u nimi magaalooyinkan qaarna u tagi doona qaarna aan u tagnay aan doonayno in qof walba xisbiga kamidii qorshaha cusub ee aynu dejinay inaynu xubna samayno oo xubnaha ka mid noqdo qofku markuu xubin noqdo isaga waajib baa lagu yeelanaya isna xuquuq buu yeelanaya waajibka uu yeelanaya waxa ka waajibka lagu yeelanaya waxa ka deenu xubinnimada wixii lagu noqonayay shuruudaheedii fuliyo ka tahay inuu bixiyo subscription-kii uu bixiyo wuxuu xaq u yeelanayaa isagu inuu membership card ka helo waxa kale samayn doona hadii la yiraahdo insha Allah in bil kasta laba goor newsletter xisbigu leeyahay ay xubintaasi gaar u hesho oo emailkiisa gaarka loogu soo diro ay u timaado newsletter-ka waxa ku jiri doona si aan ugu baahan been ciideedin timaado oo tiraahdaa noo warama newsletter-ka waxa ku jiri doona bisha ama labada week wixii wadanka ka dhacay iyo mawaaqifta xisbigu ka qaatay iyo sidoo xisbigu u arko marka qofka xubinta qofka kale wuxuu kaga duwanaanayaa markasta wuxuu noqonayaa qof xogtii xisbiga oo dhan hayo meel ay kaga maqan tahay aan jirin bil kasta xubin kasta waxa ay email-keeda uu ku heli doona hadii la yiraahdo fariin ka timi gudoomiyaha oo isaga qofka gaar u ah wuxuu kaga duwanaanaya qofka taageeraha oo aan xubinta ahayn sidoo kale hadii la yiraahdo mustaqbalka waxaynu doonaa xubintaas inay asaas u noqoto cidda soo saaraysa hadii golo dhaxal la sameeyo hadii furin la sameeyo hadii hadhowto gudoomiye la sameeyo hadii hadhowto la sameeyo musharax maxaan ku dhahdaa marka aynu hana qaadnay systemkaasi uu noo shaqeeyo in Mareykanka waxa maqashaan primary election baa lagu tartamaa ma taqaana dadka Mareykan oo dhan uma codeeyaan marka hore ee xisbiyadu ay dhexdooda soo tartamayaan qof kasto hadhow xisbiga uu codeyn doonaana kama codeeyo laakiin tiisa waxa codeeyo oo ka hadla waa dadka xubnaha rasmiga ah ka shirarka guud ee waaweyn ee xisbigu qabsanay xubnihiisa hadii la helo laga xuli doona halka iskaashigu uu ka imanaya xisbigu ay iska baranayaan halkaas ay noqon doontaa hadii la yiraahdo insha Allah anigu IT-ga kuma fiicni laakiin waxa kale oo aan ka fakaranayn page gaar ah oo dadka reer wadan ay afkaarta isku weydaarsadaan isagana hadii la yiraahdo insha Allah aan abuurno
de gudoomiyaha UK baa backgroundkiisu IT yahay marka waxaynu ka rajeynaa insha Allah inaynu taasna fulino laakiin waxa soo dhamid maanta iyo barito inooma hirgelayaan waxay tahay inaynu hadii Ilaahay raahdo insha Allah aan ka shaqeyno oo aan hirgelino haweenku marka waxaan doonaa taa inay kaalin laxad la ka qaataan oo kulligood ay ambassador wada noqdaan caawinteena halkan joogtaan haddii uu qof waliba keeno 10 qof oo fikradda xisbiga ka iibiyo oo ka dhaadhiciyo way xisbinimada waxaynu sameysanayn qabiilka kaga baxno 10 qof oo reer Somaliland oo dawladnimo doonaya oo daacada haddii uu qof waliba ka soo dhaadhiciyo afkaarta xisbiga iyo siyaasadda xisbiga u sharaxo oo siyaasadda aynu ka hadlaynay haddii la helay inuu dejin doono waxay noqonaysaa in ay xubnaha xisbigu sidaas haddii la yiraahdo insha Allah ku bataa bil walba waa in xisbigu target yeesho inta xubnood ee soo galaya shaqada ugu culus ee dadka xisbiga u shaqeynaya haddii la yiraahdo ay qabanayaan taasay noqonaysaa haddii la yiraahdo bilaha iyo sanadada soo socda haddii la yiraahdo insha Allah shirkii ugu dambeeyay golaha hoggaanka xisbiga Hargeysa ka dhacay gudoomiyuhu hadalku u jeediyay waxa kamid ahaa in qof kasta oo hoggaanka xisbiga laga doonayo inuu xubno cusub soo diiwaan geliyo xisbiga ka marka taasi waxa weeyaan arinta xisbinimada aynu doonayno inaynu ku hawlgalno haddii Ilaahay raahdo insha Allah aan ka shaqeyno dahabka uma socono laakiin waxaynu u soconaa fikirkiina aqligiina garashadiina aqoontiina iyo inaydun xisbigii xubno rasmi ka noqotaan oo taladiisa wax ku leh laakiin in uma socono maalinta ololuhu taagan yahay inta la idin yimaado oo maxaan ku raahdaa meelaha la isku xoqan la inoo xoqo deetana la nacaadifad geliyo la yiraahdo dahabkii diracyadii ay niibino maytaa uma socono waxaynu u soconaa inay noqono dad maanta ilaa maalinta doorashada wada socda haddii la yiraahdo insha Allah haweenkuna Somaliland oo dibdhaxaad u yihiin mujtamaceena kaalinta ay haweenku ka qaataan oo dhab ah oo aan khiyaali ahayn kaalin u qofnaba dafiri kara maaha waa hooyo wadankii waliba marka la joogay aragto hooyooyinku sida u nool yihiin haddana ilmihii bariiskii u doonaysa u soo shaqeynaysa qaad iibinaysa maalin oo dhan tacaddi iyo dhib la kulmaysa dhibaatada hooyada haysata ciddii fadhiisin leedeen nasin lahayd ee da'yarteeda u kacday bal waxa qiyaastaan hooyada ilmaheedii korinaysay imisa iskuulka lagu jira 12 sanadood soo ma 4 hoose 4 dhexe 4 sare iyo 4 jaamacada 16 sanadood bay ayay hooyo korinaysay ilmaheedii nolosha waxay uga keenaysay inay qaad iibiso inay tamaandho iibiso inay basal iibiso maalin cashuur laga qaadayo dawladdu inteeda ay ka qaadanaysay cashuurtii laga qaadanayay wallahi London iyo Birmingham baa guriga laga iibsaday lacagtaasi meel kale kama yimid hooyadaas ay ka timid hooyadii sida ahayd ayaa ilmaheedii 16 sanadood kadib rajaday ku soo noolay aan shaqo helayn sariirtu ku jiifay stress bahaya ama waa tahriibaya bal ilaahay baan ku dhaariyay huqda iyo hinta hooyada habeen walba haysata ka warrama waa hooyada tahay inaynu intaynu qalbiga ka dareeno aynu shaqadeedii haddii la yiraahdo gallo oo nolol u sameeyno waxa aan in badan laga hadlay marka dadka xisbiga ay soo galayaan ama mas'uuliyad loo dhiibay sidee baa la isu aaminaya waxa ma la isdaarinaya ma waxay muujinaysaa waxa inaga burburay inay yani dadkii iyo ummadnimadii ay naga burburtay nin Mareykan oo dadka daraaseeya wadamada aan horumarin third world dunida saddexaad ayaa buugu qoray baa wuxuu kaga hadlayaa wadamadu sida ay
dee u kala tagan yihiin maxaa wadan hebello wuxuu halku gaadhay u gaadhay wadan hebelna halku aanu gaadhin aanu u gaadhi waayo. marka wuxuu sharaxayaa fikrad la yidhaahdo social capital. dadku inay yeeshaan social capital oo ah inay is aaminaan, inay run isu sheegaan, inaanay iskhiyaanin. waa inta islaamnimadeena iyo diinteena ku jirta. Yurub marka la joogo Talyaaniga, magaalo Yurubta galbeed, magaalo yaroo Talyaaniga ku taala ayaa ugu faqiirsan baa la yidhaahdaa. waa magaalada maafiyadu inta badan ka timaado. marka magaaladaasi dhaqanaday leedahay waxaa kow ka ah inaanu qofna qof aaminin. marka wuxuu ka sheekeynayaa aabba inankiisii yaraa u yeedhay oo ku yidhi aabba gidaarkan kor. markuu gidaarkii koray ayuu ku yidhi soo bood anaa ku qabanaye. inankii yaraabaa baqay. ilmo yaroo dee la yidhi soo bood wuu baqanayaa soo maa. laakiin ilmuhu wuxuu ugu kalsooni badan yahay aabbihii. wuxuu aaminsan yahay aabbuhu inuu wax kasta qaban karo, inuu nolosha wax weyn uga tari karo. aabbihii baa ku yidhi soo bood. wuu ku celceliyey deetana wuu soo booday. waa sheeko dhaba weeye. markuu soo booday buu u baneeyey. inankii yaraabaa dhulka ku dhacay. wuxuu ku yidhi aabba hal cashar baan doonaya inaan ku baro noloshaada inaanan cidna aaminin. tiibaa inagayna haysataa. qof aaminaya inaguma jiro. waxaynu u baahanay inaynu is aamino, inaynu aamino in dadkeenu dad wanaagsan yihiin, in hoggaan xumo iyo maamul xumo haysato, laakiintiise aanay jirin qabiil nacab iyo cid si gaara u nacab ee aan inagu umadnimo raadino. waxa aan kusoo gabagabaynayaa dad badan baa muuse markii la dooranayay madaxweynaha rajo weyn ka qabay oo inuu maxaan ku dhahdaa waa hal adag yahay, waa caynkan sidana la yeelayaa. laakiin qof kasta oo adduunka ama taariikh akhriya ama waxyaaga way u caddayd dariiqa muuse mari doona. maskaxda qofka bini aadamkii waqtiba sibay u shaqaysaa. haddii maanta inteenana aynu baslayaal wada naho aynu basaska ka shaqayno, markaynu isu nimaadno aynu isu soo wada noqonno waxaynu ka sheekaynaa waa basaskiiw. baskii taayir baa bajaray, sidanaa dhacday. maanta markii aan lacagta ka ururinayay mid baa lacagtii bixi waayey, inantii lacagta way kala baxsatay. sheeko cusub oo kale ma keeni kartaan. muuse jabhad buu ahaa 30 sannadood. waqti muhiim oo taariikhaha waddankeenu u baahnaa buu soo qabto soo mara. 30 sannadood jabhad buu ahaa. maskaxdiisu jabhadnimay ku fareen garaysanta. wax ka baxsan ma arki karto. waxay ahayd marka qofku taariikh ummadiisa wuxuu soo qabtay intuu baneeyo in dad halkaa kasii qaadi kara ay dabadeetana yimaadaan. laakiin SNMT maxaa la odhan jiray? bacbaa ku xidhan, wuu ii soo faqayaa, wuu maxaan ku dhahdaa hebel buu ka shakisan yahay. dee tiibaa madaxtooyada u gashay. shakigii unbaa madaxtooyada yaaloo deetay shacabkii Somaliland oo dhan ayuunbay bacdii SNM ku kala wada xidhan oo aanu qofnaba qof u gudbaanaynin. waana qaabka ay u barbaareen tiimka maanta ina xukuma. mana bedeli karaan waayo maskaxdooda sidaa u fareen garaysa. ha u fadhiin inay institutions abuuraan waayo maskaxdoodu uma diyaarsan. waxaynu u baahannahay in waddankeena institutions ka dhismaan, hay'ado dawli ay ka dhismaan. cidda dhisi kartaana waa waddani haddii la yiraahdo insha Allah. aad baa mahadsantahay.